mudanayaal iyo marwooyin sida aad u dhagtihiin munaasabadan ama doodan gaaban halkudhigeedu yahay yaa gaba xilkiisii caawa barnaamijkan oo ah barnaamijyo taxan ah oo muddooyinkan soo tixnaa oo la xiriiray sidee suurtagal ku tahay in qoysaskeena Soomaaliyeed dhismihiisa udubka loo adkeeyo loona badbaadiyo ubadka Soomaaliyeed sidee suurtagal u tahay inaan halkan ku noolaano ubadkeena aan badbaadino sidee suurtagal ku tahay in waalidku uu isfahmo si ubadku uu badbaado su'aalahaas iyo su'aalo kale aad u fara badan ayaan jeclaan lahayn caawa inay halkan kaga jawaabaan qaar ka mid ah aqoon-yahanada culimaawidiinka iyo dadka waalidka ah ee ku sugan goobtan qaarkood doodan oo laba qaybood noqon doonta ayaan jecelaha marka ugu horeysa waalidiinta iyagu wax barbaariyey dhibaatooyinka qaarkoodna la kulmay ayaan jecelahay bal inaan horta dooda dhex dhigo doodaas ayaa waxay noqonaysaa sidee qoyska Soomaaliyeed markii la joogay dalkeenii uu u dhisnaa jiray halkaa markii la yimidna maxaa isbedelay hooyada iyo aabbuhu midba hawl gaar u lahaa odagu wuxuu ku mashquulsanaan jiray reerka masruufkiisa hooyaduna waxay ku mashquulsanaan jirtay korinta iyo xanaanaynta ubadka oo ka culus in badan ka culus inta odaga beegiisa ku aadan noloshu waa iska adkayd nolol kooban bay ahayd waxa weeye marka ubadkaasi marna ma dareemi jirin wax kalgacal la yiraaho oo aabe iyo hooyo ka dhaxeeya wiilkuna kuma korin gabadhuna kuma korin nolosha noocaas oo adag ayaa qofku ku barbaari jiray hadhow hadduu guursado lab iyo dhadig wuxuu yahana adiga leewaayo wax soo gudbay ma jira dhinac kale haddaan ka fiirsan waxaan xusuustaa haddaan kaftan ku daro run ah gabadha xoogaa u jajaban ninkeeda waxaa la oran jiray afka ku go nin jecela wiilashan aan guriga ku haysano waxay u baahan yihiin aabbo waxay u baahan yihiin qof nala celiya waxay u baahan yihiin aabbo la saaxiibo aabbo ka warqabo waxay banaanka ku qabtaan hooyo 6-7 caruur leh iyo 4 iyo 5 ka soo qaaday had gurigiina ma hayn karto oo cunto kare iyo ilmihii hay iskuulkii aad iyo daagiskii geey iyo wax walba kama warqabi karto waxyaabaha ugu adag aan ka waxa kamid ah ina waalidkii ay ku adag tahay inuu ilmihiisa jacayl tuso isagoo jecel waad u jeedaa inuu jecel yahay laakiin way ku adag tahay inuu tuso macnaha wajiga shansul masjid inuu wajiga ka tuso ama inuu ku dhawaaqo inuu jecel yahay ilmahaas waxaynu ka shaqeynaa ilmaha okay cunto wada haysataa dhar fiican wad gashay guriga waa la hagaajiyay qof ama rara sheegay guri hagaajin iyo waxyaabahaas laga sheegay laakiin ilmaheena inagoo jecel oo xaad u jecel baynan u sheegayn baynan tusayn baynan meel geynayn halku wuxuu ku maqan yahay dhinaca aabaha anoo mucaarad ahay muhiimadda waxweyn aabihii xil buu qaaday maalintii uu guursanaya waa inuu xilkii muujiyaa way hooyadu waxa looga baahan yahay raalinimada inay ninkeedu noqoto laakiin aabuna saddex buu isaguna mas'uuliyadiisu tahay midna lagama soo bixin guriga siduu noqonaya awlaadina saasibseen noqonaysa marka xalku waxa weeyaan intiin halka maanta fadhida qof walba reer buu leeyahay gurigiisa horta ka bilaabo oo bal dib ha iskugu noqdo inta 2 ragcadood tukado maxay naga khaldan bal gurigeyga maalan dhiso inta meel kale loo hawaysan lahaa awlaadii yareed meesha ku dhalatay ama tarbiyada la bari lahaa ama guriga ku hawaysan lahaa guri qaylinaya bay ka soo kacayaan say guri dhisan karaanba marka ma hagaagaysay bal hadii la iskugu noqo rag iyo dumar insha Allah wax badan ayay soo xasuusisay dad badan gacanta taaga haduu la yiraahdo wiilkaas sii doona haduu la yiraahdo waxaan jeclaan lahaa in gabadhu aad su xanaajisa mararka qaarkeed ninkuna aad su xanaajiyo xaalad ayagoo is guursanin oo qofkani qofka uu yahay uu si fiican u barto inta uun hawshaas dhicin arrintaas waa arrin oo biyo kama dhibcaan ha weeyaan labo qodob kale aan waxaan jeclaan lahaa oo kale in lagu sii heshiiyo ilmaha la dhalayo tiradu intay tahay iyadana inta
tirada ilmaha la dhalahayo inta ay yihiin in lagu sii heshiiyo wax walba waxna wax iska iman kara weeye laakiin wax kasta oo dhici kara in qorshe uu sii jiro waa laga maarmaan intaa waxaa kasii horeysa in labadooduba isla aadaan koorso oo shoorkuud ah oo utbildin ah oo muddo soconaysa oo tababar ah inta ilmaha aan la tababarin ayaga in la tababaro ay u baahan yihiin waad mahadsantahay marka hore la guursanayo cilad buu ka bilaabataa maxaa yeelay xariir baan u gobolnaa maanta gaduudan oo kusoo dhaweynaa laakiin gabadhi waxaa bedeshay isla markiiba ilmaha yimid hal cunug markuu yidhi waa dhibkaa bilaawday oo inta ilmo dhabarka usoo dhigto xamaalayso eban aabi hadduu ka maqan yahay haddii la wada joogi lahaa dhinaca la wada qabsan lahaa way ka fiicnaan lahayd laakiin bini aadana cillad lahayn ma jiro cillad baa nagu jirta cilladaa iska saxan